Dowladda Federaalk ee Soomaaliya ayaa wado qorshe ay iskugu keenayso sidoo kalena ay ku qalabaynayso ciidamada daraawiishta waqooyi bari ee Soomaaliya kadib markii halkaasi dhowaan uu ka soo hormuuqday wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda Federaalk ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi. Tilaabadan ayaa lagu tilmaamay mid markaasi lagu cadaadinayo siyaasadda guracan ee maamulka Somaliland. Wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda Federaalk ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa waxa uu sheegay in dowladda Federaalk ee Soomaaliya ay wado markaasi tallaabo la iskugu keenayo ciidamada daraawiishta ee maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya si markaa ay uga mid noqdaan ciidamo ka tirsan dowladda Federaalk ee Soomaaliya mishaarka dowladana ay ka qaataan. Wasiirka ayaa carabka ku adkeeyay in qorshahan uusan ahayn mid markaasi colaad muhurinayso balse uu yahay markaa xal siyaasadeed oo lagu gaarayo iyadoo isla markaana wasiirka oo ciidamada u sheegay inay jiraan saraakiil iyo dable oo markaa uu kala hadlay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya iyadoo isla markaana uu sheegay in madaxweynaha waqooyi bari ee Soomaaliya Cabduqaadir Cali Firdhiye uu wado dadaal ka dhan ah markaasi si ciidamada waqooyi bari ee Soomaaliya ay u heli lahaayeen xuquuqdooda. balse tallaabadan ayaa waxa ay u muuqataa in markaa si weyn ay uga caroodeen maamulka Somaliland oo markaasi dhowaan Yuhuudda ay u aqoonsatay dowlad madax bannaan.